بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومركلة إيه برنامج كيني قولها أبوانك إيو الرمها بلشدة برنامج كي قارك أها برحل دور كاغا عاوة مرلبات برنامج كا وحا يقوم مرتئة نآذو قيمة بضن هل أبور برسوغانيد شلافانيد أبوان خضر شعيب عبدي خضر هود أدي أدبان مركب كوباد خضر كوسر دوينية مرلبات كا خضر وهلابور سوغانتا مددر كل حشري waxaynu weydiinaynaa isaga iyo bulshada saa ay isku bartaan taariikh nololeed kooban inuu naftiisa inooga sheego ku soo dhawo khadaro aad iyo aad baad u mahadsan tahay xasan daaci waan ku dhawahay barnaamijka barahal doorkaaga waadna kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad soo marti qaaday ugu horeyn hadaan isbaro bulshada magacaygu waxa weeyaan khadar shacayb cabdi waxaan ahay nin dhalinyaro oo degan magaalada Hargeysa nin baraka iskuulada mid kamid ah ku yaala magaalada Hargeysa dugsigayga hoose waxaan ka bilaabay isla Hargeysa kaygii sarena Hargeysa ka dhigtay dugsiga Nuuruddin Secondary School ayaan ka baxay jaamacadda waxaan maamulka iyo maareynta magaalooyinka digriigii koowaad ka qaatay hay'adda shaqaalaha ama jaamacadda siyaasadda loo yaqaan maxadka shaqaalaha waxaan sidoo kale master ka wadaa jaamacadda The Unity University anigoo ka dhigtay kulliyadda shaqada iyo shaqaalaha waxaan ahay nin halabuura oo xoogaa suugaanta ku soo jiray marka haddaan bulshada kulay intaa way iga baran karaan waayahay khadar aad iyo aad baa walaal mahadsan tahay runtii khadar wax yar buu inooga taabay taariikh nololeedkiisa inaan aad saaxiib u nahay weeyaan suugaan sooyaal aad ballaaran ayuu leeyahay waa nin aad u qiimo badan khadar akhlaaq ahaan dadnimo ahaan aqoon ahaan aad iyo aad ba khadar aadna u mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa su'aasha labaad suugaanta Soomaalidu waxay dhahdaan rag waa cilgabay iyo caashiq gabay bal sababtii suugaanta bilowgeeda iyo socod baradkii suugaantaada iyo xilligay bilaabantay ayaan ku weydiinayaa aad iyo aad baad mahadsan tahay suugaanta waxaan bilaabay anigoo waxoogaa leeg horta sideeda caadiga waxaan ku soo barbaaray mii baan ku soo barbaaray anigoo weyn baan mii ka yimi waxbarashadaan ka bilaabay magaalada waagii 2013 ayaan waxaan bilaabay inaan aad u dhageysto waxyaabo la xiriira suugaanta waxaan aad ugu xidhnaan jiray abwaan weyn oo la yiraahdo Idaajaa soo daaya barnaamijyada hidaa iyo dhaqanka Axmed Faarax Ali Idaajaa ayaan aad ugu xidhnaa markaan waxyaabo fara badan oo suugaanta la xiriira ka bartay gabayo fara badan ka dhageystay ayaan aad u xiiseeyay suugaanta dabeeto waxa igu badnaan jiray dhageysigeeda ragii aan aad uga dhageystay bariga waxa kamid ah in la oran jiray Cabdalla Xasan gabayadiisii baa kamid ahaa badiba abwaano badan baa kamid ahaa oo Salaan Carabi oo kamid ahaa Faarax Nuur oo markayga horeba aan maqli jiray la yaraantaydii kamid ahaayeen abwaanadaasaan aad u dhageysan jiray ma garanaysaa uu soo tiriyay Axmed Faarax Ali Idaajaa marka waxa dhacday anigoo dhigta dugsiga sare ayaa waxaan bilaabay maktabad ku ooli jirtay ma garanaysaa xaafadda Niyub Hargeysa oo buugaag aad u dhaqano fara badan bariga ay ooli jireen ayaan maalmaha qaarkood iskuulkan soo jiri jiray xiisa aan u qabo ma garanaysaa suugaanta marka maktabadda waxa ooli jiray buugii laga qoray daraawiishta in Cabdalla Xasan iyo ka gabayadiisa iyo laba buug oo la kala yiraahdo himilada maasada 1 iyo 2 ayaa ooli jiray iyo buugaag kale oo fara badan oo af Soomaaliya ayaa maktabadda ooli jirtay marka maktabadda ayaan ka akhrisan jiray marka laga tago barnaamijkan dhageysto maktabadda ayaan ka akhrisan jiray halkaasaan markaa ka soo bilaabay suugaan jacaylka iyo xiisahan u qabo suugaanta anigoo barnaamijyada aad ugu xidhan ayaa waxa aan bilaabay inaan soo ma garanaysaa inaan soo dhex galo waaga gruubyo ka jiri jiray social media oo waxa la oran jiray waxaan ka xasuustaa golaha abwaanka iyo gole kafuul oo kulay aad bad wada garanaysaa
ayaabaan ku soo biiray halkaa waxa la isku wadaarsan jiray doodo fara badan oo la xiriira suugaanta ragga qaarkood suugaan bay ku kaftami jireen marka qaarkood silsiladaha ka bilaabmi jiray marka halkaasay hal abuurnimadeedu ka taaba qaaday golayaasha social media ayaa ka bilaabmatay marka berigaasaan bilaabay inaan wax sameyn karo aan isku day karo marka waxa dhacday macalinkaygii Soomaaliga ii dhigi jiray loo oran jiray dhamac ayaa ii dhiibdhiibi jiray maalmaha qaarkood oo oran jiray maansadan u akhri ma garanaysa ardayda u soo jeedi ama gabaygan ardayda u yara sharax sidaasan markaa masraxa ku soo bilaabay ma garanaysa hal abuurnimada marka markii aan caadi u bilaabay waxay ahayd 2014 ayaan markaa caadi u bilaabo waxaan anigu dhisi karo aan isku day marka birigaas ay ahayd khadar hawd aad iyo aad baa la mahadsan tahay mar kale waxaan oran karnaa abwaanka markii hore suugaanyahanka waxa ugu horeeyay inuu suugaan dhaadhi yahay suugaanta iyo xiisaynteeda akhrinteeda ka bogashadeeda ayaa ku horeysay bal hadda suugaantii xilliga aad tirinaysay salahan suugaan aan anigu ka aqaanay ayaa jirta bal qaar kamid ah sida gabayga shaac baxay oo kale gabaygaas ayaan jecelnahay anagii bulshadaba bal khadar oo inaad la wadaagto marka koobaad gabayga magaciisa waxa la yiraahdaa shaac baxa marka waxa uu ahaa 2015 gabayadii aan sameeyay ayuu kamid ahaa marka gabaygu wuxuu ka sheekaynayaa si guud waxa uu uga hadlayaa dhaqanka gaar ahaan waxa uu ka sheekaynayaa arrimo mowduucyo isku jira ayuu gabaygaas ka waramayaa mowduucyada uu ka waramaya waxa kamid ah tahriibka oo kale wuxuu ka waramayaa dhaqankan isbedelay tusaale ahaan hay'adaha oo kale waxyaabaha aragtida ka dambaysa ayuu ka sheekaynayaa waxyaabo ka sheekaynaya waxa kamid ah roobabkii ma garanaysaa berigii hore imanka mala aad ba looma arkee magaalada inta soo galay dir roobabkii soo dii jiray madmadowga ahaan jiray kala nooc ahaa ayuu ka sheekaynayaa marka gabaygaana waxa la yiraahdaa shacab wuxuu ku bilaabmayaa waxaan ku soo hal qabsanayaa ninaan saaxiibanahay oo la yiraahdo Yuusuf Shaacir waxaan u jeedaa Yuusuf Shaacir maaha waxa la yiraahdaa Kamaal Abiib baa la yiraahdaa marka inankaasaan ku soo hal qabsanayaa wuxuu oranayaa shaacir oo dabuub gabay beriyahan shaaci ma lahayne mashu aysan maansooyinkii shiilcaska ahaaye shareeray murtidu leedahay iyo xeer la shaaximaye shilal saarid maahe cabdow shilasho weeyaan qaar baa shakaalo tixdii shiikhiyo dilay ragii gabayga shoor baa qabsaday shaagna rogi waaye aniguna shiraaquma haye waa shamcinayaaye shafshafada intay leedahaan kuu sharaxayaaye waxaan shiinka kuu marinayaa maanse shaal xidhan inta sheekh muftiyaha u marsheen hana shallaadeene sharwadeenka gaalada hamaro hana shidoodaane sheekh iyo berberaha u tagiyo shalowgii daaloode shabeeliyo jubbada ha u tagiyo mooska shiinahae shiniiliyo afdheer ha warsheen sheeda dhagax buure sheed dheer qaxoontiga fadhiya shaaha ha u shuboye sharma sheekha laga naadiye shirarka waaweyne inta caga ku shaxartaanta iyo baalka shagaxleeya shaashlow libaax iyo dhurwaa hawsha wariyeene shaaciru yaqaan baan heemaan shirabo maanta marka inta wuxuu ka sheekaynayaa meelaha uu gabayga aynu sii marin doono waa araartii gabayga wuxuu oranayaa quruumaa 5 neef foofsadoo shaadhna loo xidhaye oon gaajo sheegayn haddana shaahid loo yahay shafcas geela shaashlaha fardood shuqulka geesleyda shinshin hiliba xeryaha shamiran shada karuurkeeda intaasoo la soo shiiday baa shoobka kuu sudhane shafka xoolaheena u wacan shay la dhuunyado iyagaa la sii shuuqsadaa shuuxa oo go'ay shuraakooyin been iyo waxbaan sheeda ka arkaaye dhagax shiilmadooba ayay kugu shareereene macdan shiilan baa taalla iyo weliba shiidaale shamiitada dalkeena batoo laga shaqaystaaye shayada la soo waaridaa kuba shax guurteene beeraha shuqaalo dad yahow firiga shaandheeya
marka wuxuu ka warramaya intaasi in wax soo saarka dalka la badiyo oo ma garanaysaa wax lala soo baxo aynu inagu isku filaano oo aynu wax soo saarano buu ka sheekaynaya daawooyin shaadira ayaa dhaaxa shaac baxaye sharbeebkii dharkaynkiiyo galool shawle baa jiray waxa shiine loo doorbidaa waa shisheeyaha sharookhaa ku badan jaamacow laga shilaabtaaye shabag dhiga badeennaa nimcada ka shabacaysaani shaanshaan barbaartii ka dhace shuguxna loo tuuriye shookiga badhbaa jiifo iyo shubabka waaweyne shixnadaha la buuxdhaafiyee shalow abraaraya badahay shuq siiyaan markay shilinka dhiibaane shaydaan ayaa duufsadiyo shuquladoodii waa tahriibkii ayuu ka sheekaynaya iminkana aad baabuu u furmayo isagoo la casriyeeyey oo maraykan lagu tegaya ayaaba jira intan dambe ayaa jirtaa wuxuu odhanayaa tumay shuuxay dhool soo shaqladay waqal shagaareeyey tog shareerme daad shawle iyo shalalax miiraale shabshablaha gariirkii ka baxay lagu shallaadayo may shaaca waa beridda oo shagagaxlaynaya minjahaad shulaha soo dhigtoo dhibicda sheelaysa shuuxshuuxlayaal soo onkoday dirir sharaabeeyey todobkoo shalmado soo xidhoo midab shabeel yeeshay shanta meesi oo wada dhaloo shirix casuusoobay marunbay abaar shaambisaa shabaga saartaaye shisheeyuhu waxay noo sidaan sheeka bereleye hadba kii shahaadiga dhacaa soo shaxaa tagae waxa weeyaan xasanow markaad u fiirsatid dal kastaaba dowladiisa ayaa qiimaysa waxa soo gelaya iyo waxa ka baxaya marka iminka tusaale ahaan hadday caafimaad tahay oo kale waxa la jeegaraynaya shahaadaduu sitay iyo saxnimadooda iyo halkuu ka soo bartay ayaa la jeegaraynaya marka dhakhtar dhammaystiran oo shahaadadii dhakhtarnimada sitoo la isku waafaqsan yahay ayuunbaa dee wadanka ka fulin kara ma garanaysaa ganacsi waxa ka fulin karaa dhakhtarnimo ka fulin karaa sidoo kale dee wixii kale la halmaala ee haddii hay-ad noqoto iyo hadday wax kale noqotaba waxa u xil saaran dee wadanka maamulkiisa ayaa u xil saaran inay dabagalaan marka taasay ka warramaysaa inay inaga soo geli karaan maadaama dalkeenu aada ugu xooganayn ma garanaysaa baaritaankooda iyo dabagelkooda inay shay kastaaba kusoo dhuuman karo ayay intana ka sheekaynaysaa waxaan si dhabo u yar xaqiiqsaday waxaan daawaday waa dhexdaasa nin al-shabaab oo lasoo qabtay oo markaa lagu eedeeyey inuu xitaa dictoor ahaan jiray oo dictoor neerfaha waxyaabahan aadka ula yaabay waxaa ka mid ahaa wuxuu yihi jaamacad haramaayo la yidhaa baan kasoo baxo Itoobiya markii jaamacaddii la baadhay jaamacaddii la weydiiyey jaamacaddii waxay tidhi horta kuliyaddaa uu sheegtay maba bixinaba ninkaa magaciisa sheegtayna weligeeba maanaan arag magac noocaasna muu soo marin markaa waxay ka sheekaynaysaa inaanay xooganayn markaad Soomaaliya joogtid ma garanaysaa arrimo loo baahnaa in la xoojiyo aanay xooganayn buu ka sheekaynaysaa markaa waxay odhanaysaa hadba kii shahaadiga dhacaa soo shaxaa tagaye shaki baa ku jira hay-adaha shaambadaa sidee shaadali hamoodina waxbaa la isu shubayaaye sharad beena weeyaan waxay nagu shirqooleene waxana lagu sheedayaa sharafta weeyaane shareecada islaamka ka wacan shay kastoo jira shareecada islaamka ka wacan shay kastoo jira soo dhaalayaal lama noqdiyo gaal sharaabsade geeluba shahruu qadi karaa shayna dheer yahay shookaanta gaadhiga ma wado shayba taageeriye shiniduba tusaale u tahay shawrka nololeed shiniduba tusaale u tahay shawrka nololeede shaabuuga faras waa inuu shaaga badiyaaye talo shalay ku seegtaa marbay dib u shishlaataa arrintii la sheelaabo way shuqa yaraataaye shirarkaa huteelada bateena lagu shaasheeyey shabadaha la sii daynayay shaashadaha buuxshay shubahaadka nagu baahayeen cidiba sheegaynin shaka haddaan la odhan xaajo waa laga shaleeyaa marka waa erey loo isticmaalo baan filayaa inay dameero ahayd ayaan jeclahay marka la joojinayo kale in loo isticmaalo marka haddii aan la joojin waxyaabaha ina soo gelaya faraha badan ee shirarka kala duwan maalinta xayawaanka maalinta heblaayo maalintii dumarka waxay ku horseedi doonaan dhaqan isbedel badan bay ku keenayaan dhaqanka ayay ku keenayaan shaq haddaan la odhan xaajo waa laga shaleeyaa gabaygii shaac baxan intaas loogu leeyahay